maka aad baa loo weyneeyey dadkii maka reer maka deganaana aad baa loo weyneeyey waxaa la oran jiray ahlullah dadkani waa dadka ilaahay baa difaacay baa la oran jiray odaygii cabdilmuطalib ee nebiga awoogii ahaana sharafu ku yeeshay aad baa loo weyneeyey intaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala tashriifkaas weynayntaasi ayaa ma aragtaayey kacbadii ayaa la weyneeyey odaygii nebiga awoogii ahaa ayaa la weeyey cabdilmuطalib shimbiro ilaahay soo diray intaa kadib shimbirihii baa meydkii guray xaggaa iyo badda ayay ku daadiyeen waa kii ilaahay lahaa alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إلهي وحا إليه النبي الله مونا وركي كسو قارن أصحاب الفيل كوي مرودية وصاحبكها ربي وحا كسمي مونا كسو قارن إلهي ميونا كدقين لكرنتي إي حمانتي أي وذين بابا مونا يلا كدقين إلهي مونا كسلدين شمبرو الصعودة جماعات oo ku ganaysa oo ku tuuraysa dhagaax la kariyey oo dhooba ka samaysan ilaahay miyuuna ka dhigin sidii caleen la cune oo lagu tuntay oo kale muuna rabbi ka dhigin arrintaasi markii ay dhacday markii laga joogo 50 maalmood ayuu nebi maxamed dhashay calayhi salaatu wassalaam culummadu waxay leeyihiin sida imaam maawardi oo kale waxa uu leeyahay haddii raggaasi abraha iyo ciidankiisaasi ay soo geli lahaayeen maka dumarkay qafaalan lahaayeen raggana weynayn lahaayeen dumarka hadday qafaashaan nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam caloosha hooyadii ayuu ku jiraa marka ilaahay tashriifin uu tashriifinayo dhalashada nebi maxamed ayaa loo halaagay raggii ahaa kiristanka ah ilaahay ma difaacayo quraysh oo wathaniyiin oo caabudaya asnaam ma tashriifinayo ilaahay waxa uu tashriifinayey waa dhalashada maxamed calayhi salaatu wassalaam qurayshna mansilo iyo sharaf ayay yeelatay dadka dhexdoodii wakhtigaasi sidaa loo weynaynayo nebiga awoogii waa la ixtiraamay wakhtigii uu nebigu dhashay maalin taariikho caama ayay noqoto waxaa la yidhaahdaa caamulfiil waa sanadkii maroodiga ayaa la yidhaahdaa taariikh ayaa dhacday markii 50 maalimood laga joogo arrintaasi ayaa waxaa dhashay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebigeennu wuxuu dhashay maalin isniina ayuu dhashay bishan mawliidka rabiicul awal la yidhaahdo 12 ay tahay ayuu nebigu dhashay calayhi salaatu wassalaam wuxuuna ku dhashay waa maka almukarama hooyadii markay nebiga ay siday wax juucjuuca may arag wax dhibaataa may arag wax maartay wax alla waxa dumarka helo oo dhan markay uurka leeyihiin midna may arag waa loo reexeeyey waxay sidaa waa khayru khalqillaah nebi maxamed ayaa caloosha ku sidaa calayhi salaatu wassalaam nebiga calayhi salaatu wassalaam intii ayna dhalin hooyadii waxyaalo badan ayay aragtay 14 mandaradood oo dhulka kisra iyo ka jirayey ayaa dumay dabkii majuusiyiintu ay shidayeen ay ku dadaalayeen inuuna marna bakhtiyin dabkiina markaa nebigu uu dhalanayay calayhi salaatu wassalaam uu bakhtiyey kiniisado badanna way dumeen waxaa kale mucjizaad aad u fara badan ayaa dhacay waxaa nebiga hooyadii ka dhalisay ashifaa bintu camr ayaa ka dhashay oo cabdiraxmaan ibnu cawf hooyadii ahayd ayaa maaragtay ka dhalisay waxaa markii ay dhashay waxa ay tiri waxaan arkay nuur ii iftiiminaya shaam oo dhan ii iftiiminaya nebiga hooyadii calayhi salaatu wassalaam nuur ayaa ka soo baxay nuurkaasi wuxuu u iftiiminayey shaam oo dhan ayuu iftiimiyey markii ay dhashay odaygii cabdilmuطalib ahaa
النبي أوغي أيتري هلا يغيرو وانا لو بشاريي إن ويل أدشي ويل كيسي عبد الله أها آد بأو فرحي وقاضي مركاسو لا أرضي كعبدو الضوافي سقو إلهي كما هدنيا إلهي سبحانه وتعالى سقو ما هدنيا أي كعبد الضوافي كدبنا وحو بحيي محمد أيو بحيي نبي عليه الصلاة والسلام وحو لشيء سقو حلالية أيو لشيء وحا النبي عليه الصلاة والسلام علماء وحيلين وحا صار لشيء isagoo sujuudsan ayuu soo dhashay calayhi salaatu wasalaam kadibna odayga intuu ku farxay ayuu masaakiinta cunto u siiyey oo aad maarta ugu farxay marka